السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقصة لا عجبي مركان أخري أذن كان إذن لو ذاقو أيان قوان صدي وقبر عن مسلمة هين أو إنجليز كودلتي ayaa waxay isticlaadeen wiil muslima oo ingiriiska wax barasho u jooga wiilkii gabadhii waa isticlaadeen wiilkii waalidkiis ayaa u sheegay wuxuu yiri gabadha noocaas ayaan doonayaa inaan guursado waalidkiis waa ka diideen waxay dhaheen gabar muslim aan ahayn guursan maysid haddaad guursatidna waa ku dayrinayaa oo caruurtayda kama tirsanaanaysid wiilkii wax badan iyo maalmo ayuu fakaray gabadhana waa jecel yahay arrintaana waa haysataa wadooyin badan oo kala duwan buu isku dayay si gabadhan u helo arrin kale maalintii dambe la yimid oo aabihiisa u sheegay wuxuu yiri haddaan islaamiyo diinta islaamka soo geliyo ma guursanaya ma ii ogolaanaysaa aabihi wuxuu yiri haddaad soo islaamisid waa ku ogolaad guursanaysaa gabadhii wiilkii u tagay wuxuu ku yiri arrintaasaa jirta waxa ogolaataa inaad islaamka qaadatid oo tawxiidka qirtid 5 kitaabna waa ku keenaya oo luqada ingiriiska ku qoran waa akhrisanaysaa islaamka iyo waxa uu yahay waxay tiri shardi intaana islaamin ka hor 5 kitaab waa inaan soo akhriyaa oo soo dhameeyaa kadib baan go'aankayga ku sheegi doonaa 5 buug ayuu keenay way soo akhrisay way soo dhameysay muddadii lagu ballamay markay imaatay waxay tiri nacam waan islaamiyaa diinta islaamkana waa qaadanayaa waana ku qanacsanahay wiilkii farxad buu la booday farxad buu isqaaday hase yeeshee maxay ku tiri waxay tiri farxadaha ku dambayso anigu islaamnimadu waan qaatay haweeney muslimada ayaan ahay laakiin ku guursan ma yeebtire ina noqon maysid nin sababtoo ah nin wanaagsan ma tihid buugaagtaadii keentay kutubtaadii keentay ayaa waxay ii sheegeen inaadan nin fiican ahayn oo saalix ah marka inaad nin ii noqotid ma istaahishid laakiin anigu muslim waan ahay diintana waa ku qanacsanahay waayo kutubtaadii keentay waxay ka hadlayaan adigaan muslimka sheeganaya kaama muuqdaan adigiiba islaamka khilaafay adigiiba kitaabkii quraanka khilaafay marka nin inaad ii noqotid ma istaahishid buugaagtaadii keentay waxay ii sheegeen inaadan ii qalmin allahu akbar ilaahay qofku doona isaga hanuuniya sida uu doonana ayuu hanuuniyaa ilaahay qofku baadi ku xukumana isaga baadiyeeya sidoo doonana u baadiyeeya ilaahay dhamaanteen qaatumada hanoo wanaajiyo kuwa diintooda ku dhaqma oo ay ka muuqato ilaahay hanaga dhigo noloshaan iyo xayaatadeenan aan noolnahay kuwa diintooda iyo dhaqanka islaamku ka muuqdo si wanaagsan oo dhameystiran ilaahay hanaga wada dhigo jazaakumullahu khayran wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh